بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku jirnay barashada software-ka AutoCAD waxaan ku jirnay chapter-kii dimension 10-kii labaad ayaan soo gaarnay. darsigan waxaan uga hadli doonaa dim command waa mid ka mid ah functionada aan ku shaqeyn karno marka aan ku jirno dimension markaan cabirada aan wax saarayno. dim command waa kana inta ayuu yaalaa ama waxa la soo gaabiyaa dim ayaad ku qoraysaa maxaa la yiraahdaa desktop-ka wadan uu ku soo baxaya screen-ka waxa ku qortaa press dim then waxa weeye enter leh way ku soo baxaysaa command-ga. haddaba marka aan darsiga hore u galno insha Allah taala dhowr qodob ayaan fiirin doonaa inagoo isticmaalayno maxaa la yiraahdaa dim command radius-ka iyo angle-ka iyo maxaa la yiraahdaa waxa aan ku saar doonaa horay darsigan ku hore waxaan ku soo baranay how to create dimension si loo soo abuuraa loo soo geliyaa inagoo soo qaadanay qaybtan oo linear iyo angular iyo wax dhan ay ku jiraan radius iyo diameter wax dhan ku jiraan. marka dim command waa kana kama agfoga dim waxa laga soo gaabiyay just dimension le waaye yaa laga soo gaabiyay waka waa ujeedaa title-ka hore ku hoos ku qorayo ama F1 ayaad ku heli kartaa more help si aad u aragto dokumentiyo badan ama waxyaabo kale ku saaciido ku saabsan dimension-ka. F1 mar walba waxa weeye help waaye oo wax walba uga baahata ama aad fahmi weydo ama aad u baahan tahay more explanation yani F1 waa taaban kartaa AutoCAD-ka marka joogtid. haddaba aan hore uga socdo dim soo qabo marka dim soo qabatid falaartaydii ama kaasarkii noocaas ayuu isku bedelayaa laakiin markii line-ka aan dul geeyo ee uu noqdo box yar kadib ayaad isticmaalaysaa dimka waa kana inta imow waa ka soo moojid saa qabo hal mar kor loo riix bis moojida taas waa horizontal oo sameyn kana vertical kana waa kana dulkeen markuu box ka noqdo la saa wajid soo moojid waa kaada rectangle kana waxa waaye 20 weeyaan مثلا box waxa haystaa 20 فهميسا marka waa dul keenay kadib markuu box noqdo ayaa ku jiidaysa aan aragna marka inagoo angle ahaan u isticmaalayno waa kana saasoma inta kale imo just we select this line and we select this one as well you see okay 120 wide angle kaas ma fahanti aan ka laabto soo qabo waa kana dim dulkeen box markuu noqdo kor leh ugu jiid oo kaasa tadanacaas waxa waaye 6.2 angle-kan waxa waaye 120 aan hore u socdo si aan u sii practice gareyno hadda wali waa noo dooran yahay hadda tiri angle-kan oo kale ayaa rabaa inaan ogaado angle-ladiisa anoo linear iyo angle halkaas dhan aan tagin kadib dulkeen select this line and select this line as well you see هذا angle كان حواي 67 degree موجودة ما كلام معن دول كان مركو box نقطة كلي كوسي عندنا أنت إمام لاين كان كله مركو box نقطة لا كوسي ده مرك 67 degree موجود وهذا ديم كون وضعنا يعني فائدة إنه ليه هاي هذا وحنا أودا أنا كاس لا كوسي عندنا أنا ما هذا واحد ما سمعنا هذا دول كان مركو box نقطة وكا كوجد لبس فهميسا اوكي انا هوري سو waxaan filayaa in uu sahlan yahay hadaba marka intana aan sii fiirino wali uu noo doonayaan dad escape dhahdo oo soo doorano waa kana inta ay ku jira dim soo dooro kadib inta imow waa soo sheegnay meesha hadda waxa ku jiro fillet ba ku jira Soomaa marka fillet-kan arc waaye arc-kaas waxa u baahanaa radius-kiisa waxa u baahanaa arc length waxa u baahanaa diameter waxa soo dhan aan bal fiirina mid aan fiirina insha Allah مثلا marka saa u dul keento haday aad rabto inaad ogaato radius-kiisa just press r then enter de waxa uu ku siinayaa xagee soo ma jeedid gacanka goobe ee radius-kaas argas yarka argas yarta radius-keeda waxa waaye waa 4 meter fahmaysaa marka la fiiri dulkeen markuu saa isku bedelo soo waxaad gelisaa deepest geli diameter buu noqonayaa soo ma jeedid waka diameter maxaa waaye 8 waka okay eegan dana waxa u baahanahay arc length
waxaa samaysaa bal fiiri dulkeen waxaad gelisaa l geli wakaa yani wuxuu na siinayaa dherarka yani masaafada halkan ilaa halkan masaafada meeqa waay arc length baa lahaa marka waa 6.28 fahmaysaa isla anagoo barti joogna haddii aan rabo inaan helo angalka waa imise dulkeen also markuu boxka noqdo bas geli mujida haddana wuxuuna siinayaa angle you see waana 90 degree angle you see muhiimkiisu uu yahay hal option anagoo haysano ayaa waxaan soo saaranay radiuskii diameterkii arc lengthigii iyo angle of arc mujida yani saas ayuu muhiim u yahay tusaale ahaan hadda waxaa kaloo baahan nahay inaan soo saarno cyclekan maxaa la jiray diameterkiisa iyo angalkiisa weli waan wataa dim way active u yahay dulkeen markuu saas imaado just haddaad diameter rabto dhibs press garee then waa kaa soo jeedi ka 21 mawjida haddana dul imow مثلا waxaa u baahan tahay radiuskiisa r bis le taabo press r waa kaa waa 10 waay haddaad 20 haysto inuu 10 radiuska yahay iska cadahayba يعني radius waxaa lagu helaa diameter waxaa lagu helaa radius times 2 samahayn hagaag waxaa kaloo intaa kuu dheer oon rabo inaan ku tusiyo markii aan dim soo doorto waxaan hadda aan iska tirtiro sorry waxaan rabaa inaan hab kale idin tuso anoo shortcut waxaad isticmaalinba waxaan heli karnaa sheeg ama hal mar aan wada select dhaho kadib saanide fahmaysaa sorry هذا البحان كذا سهل دول مو مد أدل صار لليده موجودة هل بعض وضليه كرتا وكان وحاسمين كرتا مركا انت الدوران هاي شورت كادي حنقوس من دي diameter وحاس ديم صوت دورة marka dib soo doortay kan horto ayada waa caadi hoos wuxuu ku siinayaa fiiri optionada farada badan commandiga hoos fiiri angular baseline continue or waxa dhan marka waa kuwana mujida hadii marka midalan aan u baahanahay inaan aan soo saaro diameterkan diameterkiisa dulimo kadib wuxuu siinayaa angular dooro horto angular marka dooratid then waxaa weeye inta taabo waa ka angalka una siinayaa yani waxaan ka wadaa dhammaan optionadii aan isticmaalayna shortcutka waa kuwaana intaad ka isticmaali kartaa ayadoo commands ah inaad fahanteen baan filayaa. Asalaamu calaykum intaan kusoo koobiyaa darsiga.